بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan salaamayaa madaxweynaha Puntland Dr. Saciid Cabdulaahi Dani, madaxweyne ku-xigeenka, gudoomiyaha baarlamaanka, ku-xigeenadiisa, madaxdii hore, madaxweynayaashii Puntland, ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake, golayaasha heer federaal iyo heer Puntlandba, hadday yihiin kuwa wasiirada, hadday yihiin baarlamaanada mid sare iyo mid haddii alla ku ron yahay hooseba, dhammaan ururada isimada Puntland. waxaan kaloo salaamayaa dhammaan bulshaweynta sharafta leh oo halkan ka soo qayb gashay oo u yimid shirka kan inay ka qayb qaataan ama abaabulay ama soo haddii alla ku ron soo ajiibay. waxaan si gaara ugu mahadcelinayaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani oo gartay inay maanta muhiim tahay maalinteediina ay tahay in la isugu yeero ummadda Puntland si maaragtay ay u asiibto ama wax isaga tiraahdo aayaha Puntland ama ummadda Soomaaliyeed. waxaan ku faraxsanahay in ay ka soo bixi doonaan sida aan qiyaasayno ama ifafaalaha wax reer Puntland dan waa iyo wax ummadda Soomaaliyeed dan waa. waxaan leenahay arrintaasu waa garasho wanaagsan, waa caqli suuban, waa mid haddii alla ku ron yahay waxyaalaha qaarkood waxay ku yimaadaan garashadoodu ama duruuf bay ku yimaadaan ama haddii alla ku ron caqli bay ku yimaadaan. waxaan isleeyahay caqli iyo duruuf labadaba waa jiraan. waxaynu doonaynaa marka intaanu hadday isu timid maanta waxaa loo leeyahay maxaa ka soo bixi doona shirka wadatashiga Puntland oo aan cidno u maqnayn meel kasta oo jiro hadduu gudo iyo dibadba shanta qaaradood isaga yimid. waxaan rajaynayaa wixii laynaga filayo ama wixii laynaga fili jiray inay ka soo baxaan. marka u horreysa uma baahna Puntland taariikhdeeda in halkan la yidhaaha saasay ahayd iyo saasay ahayd. waa hooyadii, waa aabbihii, waa bahalkii. taariikhda ayaa sheegaysa waxay tahay waana qoran tahay taariikhdu. Puntland waxay ahayd ama dadka haddii alla ku ron ku abtirsado halkan jooga kuwii dhaliyey xorriyaddii ama gobonnimadii Soomaaliya horseedka u ahaa, hormuudka u ahaa, ayagoo weliba dad yaroo dhallinyaraha aad u yar ahaa. waxa weeye marka waxaa la doonayaa bili baa la yidhi meeshay ka dhalan jirtay baa laga fiiriyaa. waxaan filayaa maanta ummadda Soomaaliyeed inay sugayso ama reer Puntland ba ay sugayaan in isimaatinkeena ama shirkeena aan caadiga ahayn aynu isugu nimid inay ka soo baxaan waxa ay ummadda Soomaaliyeed u leh iyo ummadda reer Puntland. marka u horreysa waxaan bogaadinayaa shirka kan fakarkiisa iyo caqligiisa ciddii lahayd haddii alla ku ron aad baan u bogaadinayaa. waxaana qabaa wakhti loo baahan yahay baa la isugu yeeray, wakhti haddii alla ku ron ummadda Soomaaliyeed u baahan tahay, wakhti reer Puntland u baahan yahay, wakhti haddii alla ku ron yahay ku habboon bay ahayd. aad iyo aad baan u bogaadinayaa. waxaan hubaa intaan iyo inta matalaya haddii alla ku ron yahay ay ka dhabeeyaan inay haddii alla ku ron yahay Puntland ama Soomaaliya midnimadeeda iyo wadajirkeedu waa muqadis. waxaan qabaa wax walba waynu isugu filannahay waxqabada. waxay tiri baa la yidhi nacag baa waxay tiri baa la yidhi ninka dhabarkaas loo gabadhayda kama dhali waayine hagar baa ku jirta. anigu waxaan qabaa waxyaalaha hadda haddii alla ku ron horumarka iyo nabadgelyada iyo waxyaalaha noocaas wax u baahan inaynu ka wada shaqayno haddii alla ku ron wax dowladda kaliya laga sugi karo inayna ahayn. waxaan qabaa cid walba xil baa ka saaran. waxaan qabaa haddii alla ku ron hadday nabadgelyo tahay, hadday horumar tahay, hadday dhaqaale tahay, hadday wax kasta tahay waxaan qabaa inaynu dhammaanteen
in xili naga saaran yahay waxaan leeyahay arrintaas marka qodob waliba waajibka uu leeyahay ha u arko inay tahay inuu waddankiisa u shaqeeyo waxaan u qabto waxaan aad u bogaadinayaa oo soo dhaweynayaa fikradaha waxgaradka siyaasiyiinta haddii alla ku leeyahay isimada cuqaasha aqoon-yahanka siyaasiyiinta fakarkooda siday u cabirayaan ama haddii alla ku leeyahay ay u arkaan inay tahay wax lagama maarmaan oo muhiima waxaad mooddaa inay ka soo baxayaan wax fiican oo halka kan marka u horeysa waxaan ayidayaa oo soo dhaweynayaa Puntland iyo federaalku inay wada hadlaan oo miis wareegsan ku wada hadlaan oo siran u wada hadlaan oo waxa weeye waxa jira dadka wax kala xadada ayaa jira waa dastuurka iyo sharciga oo qof walba qof ilaa qaran mid walba haddii alla ku leeyahay uu leeyahay wax haddii alla ku leeyahay wax qabanaya ama xaq u leeyahay khalad iyo saxba wax tilmaamaya haddii alla uuna kala sheegayo qofku wuxuu xaq u leeyahay iyo wuxuu xaq u lahayn waxaan leeyahay marka dastuurka in lagu dhaqmo waa arrin muhiim ah lagana maarmaan ah asaga ah kan kooxadeeya asaga ah kan cid walba tilmaamaya asaga ah midka kala xaq siinaya dadka asaga ah midka haddii alla ku leeyahay cid walba ku qanacsan tahay waxaan soo dhaweynayaa si buuxdana aan u bogaadinayaa wada hadalka Puntland iyo dowladda federaalka waxaanu leenahay hal barkeed qalan yahay baa leeyahay barkeed ma daaqo waynu isu baahan yihiin Puntlandna wax ma noqon karo federaalka la'aantii federaalkuna Puntland la'aanteed wax ma noqon karo wuxuu dowlad ku yahay federaalku waa Puntland iyo ismaamulada ama gobollada weeyaan haddii aan la wada shaqayn haddii alla ku roon yahay la wada jirin wax u qabsoomaya ma jiraan magac haddii alla ku roon yahay kaliya ma iska noqonaysaa oo waliba aan sii waraaqin wax badan aan jiray waxaynu rabnaa marka xil baa inaga saaran midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed aynu noqonno kuwa Soomaali ah oo ku sifooba Soomaali waxaynu ognahay qarankaanu inuu ahaa qarankii aynu garanayno Afrikada madow marka laga saaro Nigeria iyo South Africa qaranka u awood badan inuu ahaa maalin dhaweyd baan waxaan arkayay YouTube-ka waxaan arkayay ayadoo la qiimeynayo ama lagu sameeyay bahalkii waxa kan la yiraahdo qiimeyn lagu sameeyay ciidamadooda qalabka sida waxaynu noqonnay waddanka labaad waddanka ugu hooseeya hal waddan baa inaga hooseeyay yani maartay ciidan ahaan inaynu dalka u liita inaynu ahayn waxaanu garanaynaa inaynu ahayn labadaa waddan oo waliba Nigeria aan la hubine South Africa mooyaane aynu ka wada awood weynay inta kale waxaynu u baahannahay marka wixii ahaan jiray qaranka Soomaaliyeed inaynu haddii alla ku roonyahay annagoo xusuusan intiisoo hadda inta ka bacdi dhalatay ama yaryarka ama sagaashamaadkii dhalatay ayagu waxay sheegayo waxay u baahan yihiin haddii alla ku roonyahay in wax loo sheego wax horey u jiray ma ogay laakiin intaynu ku garaadsatay ama ka mid ahayd waxaa loo baahan yahay inaynu ku fakarno fakraddan aynu dadka u sheegno si qaranka Soomaaliyeed loo soo celiyo waxaan leeyahay marka anigoo hadalka raba inaan soo gaabiyo maba gaabnay waan badiyay intii loogu talagalayna waa ka badan yahay waxaan leeyahay Puntland ha midowdo Soomaaliya ha midowdo ha israacdo wixii haddii alla ku roon yahay midnimada Soomaaliyeed haddii alla ku roon yahay nacab waxba inama tarayaan wixii Puntland nacabna waxba inama tarayaan waxaynu rabnaa inaynu goobjoog ka ahaano inaynu haddii alla ku roon garsoor u ahaano wixii khalad oo jira inaynan cidna ka qaadan cidna u qarin hadduu federaalka yahay hadduu baalka yahay waxaynu doonaynaa marka inteenaanu inaynu noqonno dad doonaya in Soomaali ay wax noqoto in Puntland waxay xaq u leedahay iyo xuquuqdeeda inay hesho waa lagama maarmaan waxay xaq u leedahay dastuurka in lagu dhaqmo waxay xaq u leedahay waxay qoonto iyo qorshe u leedahay inay hesho
waxay xaq u leedahay qiimeyn iyo qadarin waxay ugu xaq u leedahay wax walba oo la qabanayo in lagala tasho wixii sharciga iyo dastuurka iyo nidaamku u ogol yihiin waxaan leeyahay hadalkayga kaga baxaya Soomaaliya ha noolaato ha midowdo Puntland ha noolaato ha midowdo kuwa wada jira Allah inaga dhigo kuwa haddii alla ku roon yahay wanaag iyo haddii alla ku roon yahay wax fiican inta u fakara waddankooda dhista wada qabsada wadaniyiin ah Allah inaga dhigo ilaahay saasan ka baryaynaa intaan iyo intii shabaa Allah xafido faatax bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillah سلطان عبد الغني حسن علي بالا أدي أدبو مهاتسنتهاي waxaan rabaa haddana inaad ila soo dhaweysaan beeldaajo cali faarax